ورنبض كل يوم بدنا نوتها قف جارة وإدنا نطيمتشو دتك أجوبه بدنا وحوي دتك ما أنت هالكان فديوي وحولها وتها وأبارتك سو جوري وسوق يمد أجوبه بدنا نبض إنه إلى لنا وكل يوم كوضع شقينا ديار ما ونهاي ما إلى هرتيسة ودار الذكر تاج جماعة تاجا نبض ديار ما ونهاي أنا قلنا واكل كلا شقينا وين كلا شقينا تاسواتين نبضي waxaan kaloo iyadana aan baaqaynaa halkaan uga baaqaynaa cid kasta oo nabadgelyada wax ka qaban karta haday tahay gobolka mudug oo labada dhinacba ah Puntland iyo galmudug labadaba ah iyo dadka shacabka ah oo kale oo dadkaan ka dhashay oo magaalooyinka ku nool ama dibad jooga ama gudaha jooga ayagana waxaan ka codsanaynaa in nabadda nagala shaqeeyaan nabadda in nagala shaqeeyaan inta meesha hadda joogta waxay u tagaysaa guriga markay ku noqoto boqolaabkeed waxaan baaq u jeedinaynaa cid kasta oo deegaanka maanta degtay iyo cid kasta oo soo degi doonta nabadgelyo in laga shaqeeyo kii gurigii tagaa waa furan tahay labada dhinac ma kala leh hadda dadka meeshaan isugu yimid wuxuu u badan yahay dhinacan galmudug iyo dhinacan Puntland oo deegaankeedii aad moodi roobkii in la isugu yimid aniga oo ku hadlaya dhinaca Puntland codkooda odayaasha waliba waxaan soo dhaweynaynaa wax allaala inaad shakiga iska saadhaan cabsida iska saadhaan aad baan ugu faraxsanahay saaka waxaan soo raacay nin dhinacaana oo reer Axmada gaariga markuu soo fulo noqoday waa qoslay waan ku faraxsanahay qof walba qorigiisa intuu dhigto hal la isu yimaado baayida hal la kala ceshado biyaha hal la cabo waa soo dhaweynaynaa ciidii falfal xumo la timaada dhinacan galmudug shacabkii ka soo dalka kacay waa u dul qaadanaynaa fiiro dheerna waa u yeelanaynaa laakiin dhinaca Puntland waxaan leeyahay anoo ku hadlaya codka odayaasha iyo codka siyaasiyiinta iyo codka ismada intaba gacan biraan ku qabanaynaa kii cid wax yeela maanta ha ogaado sidii hore ma waxaan kaloo baaq u jeedinayaa oo aan rabaa dhalinyaradu inay aad u fahmaan meesha aan joogniyo gaalkacyo tawfiiq ilaa iyo 19 10,000 oo nin baa ina kaga dhimatay colaad maxaan ka macaashnay way nabadgelyada maanta aynu sugu nimid inay mira dhasho oo aynu bedelo tii hore cid kasta oo baaqaasu gaaro baaq baan u jeedinayaa ilaahay nabadgelyo inuu na siiyana ilaahan ka barino aan kuna dadaalo dhalinyaradiinu ku dadaala qoryaha dhiga nin walba ninku u yimaado waa aqoonaya dhinaca ninkii ka yimaada kii dhinacaan u yimaado waa aqoonaya haddii uu 20 sano ka weeyo ka dhinacaanina waa aqoonaya haddii maxaa awal isdhex taagnaa sheeqdaan baa isdhex taagay intii dhimatana sheeqdaan baa sababay ilaahu naga dul ciidamada ayaa diyaara odayaasha ayaa diyaara wax garadka ayaa diyaara in la doono ninkii xoolo ka baxsadaano xoolihii soo sheeg hal la raadiyo wala raadinaya ninkii xoolo arka soo gudbi xoolaha oo u soo gudbi geedkan u soo gudbi iyo wixii gudiga iyo gudoomiyaha iyo soo gudbi iyo ciidamada dadkan ciidamada raggan ciidamada oo meesha jooga naftoodii waxay u hureen nabadda idinkuna say ugu horeen naftiina u hura oo nin walba nabadda ka shaqeey oo nin walba wax baadiya hadaad aragto iska soo gudbi xoolo dhici maysaane nin wax dhacaya hadda ma jiro insha Allah taala laakiin waxaad aragto baadiya nin walba soo celi warintaana baadiya arkay qabta adna baadidaada wala celinaya ninkii baadidiisa celi baadida islaameed celiya isagana baadidiisa la celinaya arintaasi waa arin muhiim ah waxa la isugu yimidna waa intaas xoolahaana la isugu yimid kulli nabadda la rabaa laakiin si khaldan yaan loo fahmin nabadda si khaldan nabaddu waxay ku imaanaysaa markii aad baadida celisid adna taada wala soo celinaya markaad dadka qiimaysid adna waa lagu qiimeynaya markaad nabadda ka shaqaysid aakhira iyo adduunba khayr badan ilaahay isku kaaya keenay nabadgelyada ina siiyey madarka iyo haddii ay ku nacfiga dushiisa yaala dhulka ilaahay ina siiyey ayaan u mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinaynaa inta isku hawshay bini aadamkan haddii alla ku roon yahay ayaanta kala deganaa maanta isugu yimid naqaan haddii alla ku bini aadamku isku hawlay madaxda leh mas'uuliyiinta leh gudoomiyaasha degmooyinka leh salaadiinta leh culimada diinka leh qurba joogta leh waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa ilaahay inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo ayaan ilaahay uga baryaynaa
culummada iyo haddii alla kuurayo odayaashana horena waan ugu sheegay daraad galab oo meeshaan aan fadhinay inaanu isugu nimaadno meeshaan aanu dhex fariisanno dadkii na eedeeyey oo shalay naloo duubay oo maanta isku yimid inay geedka geesaha ka soo galaan oo aanu maalin walba u fadhino shalana waan ugu baaqay maantana waan ugu baaqayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu nabadgelyada noo hirgeliyo isagaa subxaanahu wa tacaala dhalinyaradan iyo odayaasha iyo wixii hadda markaas aduu iska qaldan waxaan ugu baaqayaa inaad ilaahayna ka xishootaan bini aadamkiisana ka xishootaan meel wax lagu dhaco ama wax lagu dilo waa la soo gudbay meel wax lagu xadabaadiyo waa la soo gudbay nabad baa la wada joogaa walaalnima la isugu yimid nafaca yarka baa la isugu yimid hadduu dhammaado nabaddu way jiraysaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin baaqna waxaan ugu dirahayaa intii hadda ka qayb qaadan karta ama nabadaas ama bini aadamkaas hadda maartay ciridda iyo oonka la tabaalaysan wax ugu sadaqaysan karta meeshay doonto ha joogto inay ku sadaqaystaan anagu markaan ugu degmada Tawfiiq baan ka imid deegaanka Tawfiiq odayaashii joogo xeerbeegta aan ka mid ahay waxaan isu taagnay haddaan nahay deegaanka ummadda degan maalinka maanta ummadda dhexdeeda xal iyo wanaag inaan ka shaqeyno صغير يا كبير واسو تاغني waxaan isugu taagnay ummadda xalkeedu inuu yahay nabad ilaahay mahadiis waxa adima noo noqday oo jeeyo noo noqday oo gacmo noo noqday ciidankii waxa gacmo noo noqday dadkii shacabka ahaa oo xoolo dhaqatada ahaa baa waxay noo noqdeen gacmo iyo adimo dadku hadduu san lahayn dad gacmo oo dadka xoolo dhaqatada ah oo san xoolaha iska soo sheegin oo soora halkaan ay wax marayaan waxba ma qaba karaan ciidanku wax ma ogaa karo odayaashu wax ma ogaa karaan haddaan nahay deegaanka degmada Tawfiiq 7 geel baan celinay 7 baxsi oo geel baan celinay 7 geel oo baxsi oo celinay waxa noo soo sheegayay shacabka dadka xoolo dhaqatada ku hayay halkaan xoolihii marayaan waanu haynaa soo doona kaalaya kaxeey hadalka waxaan u baaqimayo saraakiisha u sheegimayo odayaasha u sheegimayo reer magaalka u sheegimayo xeerbeegta u sheegimayo dadkaan u sheegaya waa dadka xoolo dhaqatada waxa laga rabaa sida deegaanka Tawfiiq shacabkiisu ugu dhawaaqayay baadida oo u lahaa halkaan baadi baa maraysa oo odayaasheeda ay noogu soo sheegayeen oo ciidanka ay ugu sheegayeen meel walba la joogo inuu sidaas oo kala noqdo maamuladana waxaan ka codsanaynaa labada maamul oo Galmudug iyo Puntland waxaan ka codsanaynaa haday maamul yihiin oo Ilaahay jarta ay maamul u yihiin dadka inay wanaagooda ka shaqeeyaan oo soo dhex yimaadaan oo biyaha u keenaan oo waxay u baahan yihiin u keenaan oo nabadda ay dhiirigeliyaan baa looga baahay aakhirana waa la weydiinaa taa ha ogaadin intaa waxa sii dheer walaalayaal dadkeenu waa qaxay oo dibad buu galay oo baddu ku dhintay oo meel buu ku baabaay waxaana keenay waa colaad iyo qoriga xunka oo aakeega qabyaalada qurunka baan ugu liito ugu sii daran ilaahayna qabiilka wuxuu ka dhigay waxa weeyaa in la isku aqoonsadee in la isku xumeeyo ilaahay inaan ku dhigin ilaahay xaqiisa waxa sharaf kale dadka maartay ilaahay ka baqa qofka ilaahay ka baqa xaq rabbi reer hebel ama cudurba hal yiraahdo dariya daarood iyo hawiye ma kala fiicna ilaa cid ilaahay ka cabsata baa fiican qofka ilaahay ka cabsada oo ilaahay ka baqa oo muslimku dariska amaan ka helo afkiisa amaan laga helo maanta dadka halka jooga dhamaantood iyaga ku biyaha wada cabaya iyaga cid walba iyagoo dariya daarood iyo hawiye cid walba wada yeerirba waa kuwa maanta biyaha wada cabaya marka waxaan leenahay maamuladana ka codsanaynaa Soomaalina ka codsanaynaa dhamaanteed walaalnimada iyo nabadda asal nooga leh in laga wada shaqeeyo hadal xun iyo kalmad xunna la iska ilaaliyo wixii wanaagna laga wada shaqeeyo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa roob khayr qaba ilaahay na siiyo dadkaan biyay u liitaan وحاجة بيها هذه عاد ملس أو مصورة مودجين عيال اللمة له أنا وحنا له هرتك سيدا قلب يموت لها كولا هاللين سيدي ملس عيال الله وقود لها ودتك أبي وهل الهايين ورول خير رد حي أضب بلارن وإلهي بلاريين عيال عقلي عيال وقود الله هينو إنه بيوهل الهايين وودين لو قصة بيلها هلا يشقي ولا اللي بينا مدن لو قلنا واحد دقن معه كل تام تشران هري هبي ريه بالله سد له كل تام تشران ريه بالقبر كله قال ما يسوى حين خدم بسمعنا آخره وإلهي يري يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما أنت قف كعرري هو يدي وأبيه كعرري وهو يدي كعرري بين السويس قبر يقف كل يستقلي قف الراعي مشرو والله سوامان قبيل باب إسي إلهي أنت وبتكنه والله يا ريال بادية إلهي قصديس الله وحو كل حاجة
هدان لو دحجر إنا ناسكو إمام بلا دحتاج بلا ولا دحتاج أو نمنا هالكاب عسري بلا هالكاب عسري من بلا هالكاب عسري وقرن لعنة هاي أنا سكون مانو ورجع وسك عواك عوار فن وردي ما يشرب أنا قلت راب كان عوار طاقم إله هو النوتي بس هو حنسلايا بس هو لنا بلاد حتى يو نقول إنه تذكر الشيطان كمان سنة إله بلاد عشان نقول إحكي أدوك ميل نقول أنا قلت ما يهانوني هذول هم بتسوق قرنين ما يلهم قرينا قرنين الله هنوش ورما إلى هيبة هدوس قرين ما كنت علينا وحن لنا إلى أدوك إلى نضافة واحد أهون سنة نضافة شيطان نضافة أدوك بس ما يواجهنا أو واحد جيسا ما لقطة أو قيامة كسوق إلى هون يجي من لك قلت أنا وأنا كنت عايزنا فتحنا وكم مرة المجال وهشيء قناعسنا وهشيء معمولنا وهشيء وهذا كلا تاجم الربادية إنه هشين ولا تنبيه لا شو منه كل تجي مني أنا الربادية وصفي عنا إنه هشين لأنه ما يحشر كره نبأوه يري وحوا يندرم بوي نبأ ركتيز هذه الله آخر ويندره بتلاني قلب دوغاري وصارناين ganacsigiina waa wada yimaadeen suugaari sar maxay naga iskurteenan fulinoo diiday waxa ku dhex jira marka reer filqa la iska saaro nabadu qof walba waa u dan waxaan leeyahay geel kale cishi iyo bahalkan ayaa naga aan wada daaqna ma aha anagu hadii alla idmo waxaan u dhaansanaynaa qaydari hadii biyahan naga go'aan idina waxaad u dhaansanaysaan kaamkaas كومها ليليا كومها مياه كومها مش اللي هو دانسة أنا غيرها دانسرينا إن شاء الله ساسا إنه بلنا إذا كان عاديات من هم علنا يعني نبي يربي يا أبو مساعد قال ما أركيسي وأساس اللغة السلوى هذا قريبا إنه بياه عندهم كل قارنا بريس ولا حد قبيسي ما إنه قارن وعندنا إن نشوف تيسين حق بياه يا نافذ باقي يرى أن كدر سنة يا وحوي ما أنتوا واحد لي أضيال بأبنيه ragga marka dhalinyarada ah ama dhalinyarada yaryaraha ama dhalinyarada cuslaata ahaatee oo arrimuhu waxa weey maarta saameynta ay ku sii yeeshaan inta badan baaqa aan soo jeedinaya waxay taariikhda la dheeraa soo gal ayaga khaasaan baaqa aan soo jeediyo walaalayaal waxa weey maarta nabadu iyo maarta amniga dadka waxa weey ugu wanaagsan oo wax tarayso waa annaga dadka dhalinyarada weeye hadii waxa weey maarta aan dhibaato iyo maarta amniga faraha aan ka saaro dhibaato aan ka shaqeyno annaga umbay waxa weey maarta gadaal nagu laabanaysaa waxaan ugu keenaysaa jaanis xumo ma shaqaysan karo ma guursan karo ma ganacsan karo wax ma baran karo horta waxa weey maartay aan u aragna marka inay anfacaysa annaga oo khaasatan aan sii qusanayso hadii aan amniga ka shaqeyno amniga aan taabagelino ilaahay noo hirgeliyana waxa weey nin walba maartay shaqada awlahayo qaaska uu raacan doona danta guud marka la waxa la tagaaraneedna bay hoos ka shaqeeyay hela waxa halkaan iskugu yimid ummad beelo badan kala tirsan ee gobolka Mudug wada degta oo meel kasta iskaga soo hayaantay halkaan waxa waaye waa degmada Jariiban iyo degmada Tawfiiq uu ka tirsan weeye waa la isku soo guuray dad shacab oo colaad ka dhaxaysay oo galmudug iyo Puntland ka kala tirsan ayaa iskugu yimid ma sha Allah 30 sano ayay soo wada degin hadda waa wada degan yihiin waxa laga wada shaqeynayaa inay baadada loo kala celinayaa waa wada degan yihiin maamulkii dhinaca Puntland wuu joogaa hadday saraakiil tahay iyo hadday gudoomiyaal degmada tahay intaba